J.K. Rowling's recent comments on transgender issues. In a statement, the actor Ron Weasley in the Potter film said, "I firmly stand with the trans community. Trans women are women, trans men are men." J.K. Rowling waxa laga yaabaa inaad garan magacan, laakiin waxaad garanaysaa hawl qabtay qofka magacaas leh Harry Potter. waa sheeko khiyaali ah oo haddana ku guuleysatay iibsiga ugu badnaa. gabadhan qortay sheekadan ay hantiday balaayiin dollar sida uu qoray wargeeska Forbes ee ka faalooda arrimaha dhaqaalaha. sanadii 2007 waxay soo saartay gabadhan qaybtii 7aad ee sheekada Harry Potter, taasoo ay sugayeen malaayiin qof si ay u akhristaan sheekadan. dalka Mareykanka oo kaliya waxa laga iibsaday 12 milyan oo buugaas hal maalin gudaheed. haddaba daawaday waa tuma gabadhani sidee ayayna ku guuleysatay. muuqaalkeenana aynu kaga hadli doonaa. ugu horreyn daawaday haddaad nagu cusub tahay kanaalkana subscribe garee, muuqaalkana like saar, siina share garee. mahadsanid. gabadhani waxay u dhalatay dalka Ingiriiska waxayna ka shaqayn jirtay 3 wadan oo kala ahaa Ingiriiska, Faransiiska iyo dalka Portugal, halkaas oo ay ku dhigi jirtay iskuulka carruurta wax lagu baro. halkaas ayayna isku bartay ninkii markii dambe ay isguursadeen. waxayna dhashay gabar. dhowr sano kadib uu furay ninkeedii kadib markii uu soo dhaxmaaray muran iyo qas badan ilaa arikoodii soo dhex gashay safaaradda Ingiriiska ku leedahay dalka Portugal. waxayna Rowling ku laabatay wadankeedii Ingiriiska halkaas oo ay kula kulantay waxayna fileen. hooyadeed ayaana dhimatay intii ay maqnayd. arrinkaas oo ku noqday filan waa warwar badan ku abuur. Rowling waxay la tagtay walaasheed oo ku noolay magaalada Edinburgh ee dalka Scotland sanadii 1995. Rowling sanadkaas ayay soo danjirsatay waxayna bilowday inay qorto sheekada wiil yar ee sameeyay mucjisooyinka badan ee sixirka Harry Potter, kaas oo ay ka heshay markii ay ku riyootay. waxay ku riyootay iyadoo saaran tareen sawiro humaag oo hortooda soo maraya kuwaas oo qofiinay sheekada Harry Potter. waqtigaas oo ay ku noolay gabadhani Rowling lacagta ceyrta ah ee la siiyo dadka saboolka ah waxayna ka qaadan jirtay xukuumadda. Rowling markii ay dhamaysay qorista sheekada khiyaaliga ah waxay geysay meelaha lagu daabaco buugaagta kuwaas oo ay kala kulantay gacan seer inay daabacaan sheekadan. Rowling iyo jaban ee waxay sii waday raadinta waxaana diiday in ka badan 12 madbacadood. raadin badan kadib waxay heshay in haysa madbacad yar oo ka ogolaaday inuu daabaco. sababta ugu qancayna waxay ahayd inantiisa ama gabadhiisa yar oo uu sheegtay inay aad u yaabgelisay sheekadan. kadib markii ay akhriday, ninkii haystay madbacadda waxa uu ku xiray gabadhan Rowling sharti ah inaanu ku qorin magaceeda buugan ee ku qoro xuruuf la soo gaabsaday. waxaanu ku sababeeyay inay dadku iibsan doonin buugan haddii ay ogaadaan inay qortay gabadhan oo aanay jeclaysan doonin. aakhirkiina way ka aqbashay Rowling. buuggiina waa la daabacay suuqa ayuuna galay. buuggii waxaa loo iibsaday si weyn waana la soo dhaweeyay. dad badan ayaana ka helay sheekadan halkaas oo noqotay bilowga guusha iyo caanbaxa Rowling. waxay ku dheeratay Rowling inay qorto sheekadan oo ay dhamaystirto. waxaana suuqa soo galay buugaag ay qortay oo gaaray 7 buug. waxaana laga sameeyay 4 filim. sida la og yahay buugan Harry Potter waxa lagu iibiyay suuqa in ka badan 400 oo milyan oo buuga dhammaan dacallada dunida. Rowling waxay noqotay haweeney taajira oo maalqabeena. Rowling waxay noqotay mid ka mid ah shakhsiyaadka raadka iyo saameynta ku leh uguna magacaaween qarnigan sida uu qoray wargeeska Time ee ka soo baxay dalka Mareykanka. sidoo kale Rowling waxay noqotay qofka 160aad ee ugu hantida badan caalamka. xagga dumarkana waxay noqotay gabadha 13aad ee ugu caansan uguna maalqabeysan sanadii 2001. sanadii 2006 sida uu qoray wargeeska Forbes, Rowling hantideedu way siyaaday waxayna noqotay gabadha labaad ee ugu hantida badan caalamka. liiska dadka ugu caansan caalamkana waxay noqotay qofka 84aad sanadii 2007.